wararkii ugu xiisaha badnaa ee suuqa kala iibsiga saaka oo talaada ah. Jadon Sancho ciyaartooyga kooxda Borussia Dortmund waxaa ka mid noqday liiska dheer ama 4 ciyaartooy ay rajeynayso in Chelsea ay ku qarash gareyso budgetan 150 milyan. Chelsea ayaa qarash gareynaysa 150 milyan suuqana gelinaysa waxaana ciyaartooyda ay ku soo qaadanaysa qayb ka noqday ciyaartooyga Ingiriiska ee lagu magacaabo Sancho oo kooxo badan ay rajeynayaan. Chelsea ayaa markaasi laba suuq laga ganaaxay kadib markii ay ku xadgudbeen sharciga dhinaca suuqa isla markaana ay soo gateen ciyaartooy daadoodu ay aad u yartahay. Kooxda ayaa rajeynaysa in dib ay u bilaabi karto bisha Janaayo ee soo aadan dhinaca suuqa waxaana kamid ah ciyaartooyda ay rajeynayso ciyaartooyga Borussia Dortmund. sida laga soo xiganayo warsidaha lagu magacaabo Telegraph oo ka soo baxa gudaha Ingiriiska. Chelsea 150 milyan ay qarash gareen doontaa waliba ciyaartooyda la rajeynayay in suuqa ay qasaaraan waxaa ka mid noqon doona Olivier Giroud joogdheeraha Faransiiska marka laga tago. Petro ayaa kamid ah kaasoo qandaraaskiisa isaguna uu dhici doono waxaa shaki uu ku jira Willian halka Migi Basho isaguna uu sii wadan karo qaab ciyaareedkiisa. Borussia Dortmund ciyaartooyga Ingiriiska ee Sancho ayaa kamid ah ciyaartooyda ay rajeynayso Chelsea garoonka Stamford Bridge ay keento. sidoo kale Crystal Palace laacibkeeda Walfred Zaha ayaa target u ah waxaan la hilmaamin karin laacibka lagu magacaabo Moussa Dembele oo kooxda Lyon ka tirsan kaasoo isaguna sidoo kale ay ku tartamayso Manchester United ayaa qayb ka ah xidigaha Chelsea ay rajeynayso. xidiga kale afraadna waxaa lagu sheegay laacibka daafaca bidix uga ciyaaray kooxda Leicester City Ben Chilwell ku darso fakiska ama dawacooyinka kooxda lagu naanaysa Leicester City waxay sheegtay in suuqa Janaayo Ben Chilwell aanu iibihayn. haddaba sidaas ay tahay Talk Sport waxay leedahay Chelsea racfaan ay ka qaadanaysaa ganaaxa suuqa ee la saaray sida warar soo baxaya ay markaasi sheegayaan. dhinaca kale Real Madrid waxay isku diyaarinaysaa in Waleska weerar kaga ciyaaray Gareth Bale oo 30 jir ah oo lagu daray 70 milyan ay ku soo qaadato ama City ay siiso si looga soo wareegsado weeraryahanka xulka qaranka England ee lagu magacaabo Raheem Sterling oo 24 jir ah. sidaasi waxa ku ramaysa shabakada lagu magacaabo Sky Sport. waayahay Manchester United Liverpool waxaa si toos ah loo xiriirinayaa Timo Werner laakiin kooxahan wadanka Ingiriiska ka dhisan digniin ayaa soo gaaraysa kooxda RB Leipzig oo waxay leedahay iimahan weeraryahankeedna Mayer ayaa sida leh Manchester United waxay sameynaysaa liiga ay qiyaaray West Ham xiriir ku aadan waliba qadka dhexe ee Ingiriiska ee Declan Rice ay rabtaa 20 jir way laacibkaas tarma bartilmaameed waxay ka dhiganaysaa suuqa soo aadan iyadoo Janaayo sidoo kale siixiya sameynaysa. Chelsea waxay bartilmaameedka soo gashay Lyon weeraryahankeeda Moussa Dembele oo 23 jir ah. laacibkii hore ee Celtic-na waxa uu diiradda u saaran yahay kooxda lagu magacaabo Manchester United sida Daily Mail ay leedahay. macallinkii hore ee Chelsea Manchester United Jose Mourinho waxa uu kamid yahay liiska macallimiin la xiriirinaya Bayern Munich kadib markii laga buriyay Niko Kovac. macalinkaasi ayaa laga buriyay kadib markii Eintracht Frankfurt ay ka soo gaartay qasaaro toddobaadkan. Manchester United-na waxay baaqi ku sii ahaan doontaa Faransiiskeeda qadka dhexe ka ciyaaray Paulo Pogba oo 26 jir ah in 4 isbuuc oo kale ay sii weyso kadib dhaawacan qowga ay soo gaaray. waxa ay hayeen kuwaasi wararka ugu xiisaha badan ee suuqa. Romana waxay rabtaa in si joogto ah ay kula wareegto Chris Smalling oo Manchester United ay leedahay 13 milyan ayaana wararka qaar ilaa lacag u dhaxeeya 10 milyan ayaa lagu heli karaa.